بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدعيان الدين سلام يا والله الصومالي ده ميلو البوجوكتان وحن إذن سلام يا صلاة الإسلام قوانين هرمري هذا بعوي وحن إذن لو ذاك دونا برنامج هذا خرحبضا أو أن أركو إن وحفر بدن ونرش هذا كبدل دونا إيو qaabka noloshaada aad hadda u wadid waxaan ognahay inta badan meel walba qof walba uu joogo inuu ka fikiro waxa la yiraahdo lacag sideed dhaqaale ku sameyn doontaa hal maalin sideed dhaqaalahaada u hagaagi doonaa laakiin maanta waxaan kula wadaagayaa fursad symbol ah oo aad uga faa'iideysan kartid lacagtaada hantidaada inta yar ee aad qaadatid bishii aad ku manage gareyn kartid intaas oo aad manage gareysay ayaad ku dhisan kartaa ama ku gaari kartaa horumarka nolosha aad doonaysay inaad weligaa gaartid haddaba waxyaabaha aad u joogtid ee caalamka dhaqaalaha marka lagu leeyahay hebel dhaqaale badan qofkaas intaas oo haysto wax weyn kuma uusan gaarin laakiin waxa uu ogaaday lacagta sideedaba qiimaha ay leedahay iyo qaabka loo manage gareeyo iyo sida ugu fudud ee lacagtan lacag looga soo saari karaayo haddaba sida aad ku aragtay topiga ama title-ka kore ama thumbnail-ka waxaan idin la wadaagayaa 4 qodob oo ugu muhiimsan oo aad ku manage gareyn kartid kista yar ilaahay ha ku barakeeyo intaad haysatid intaad qaadatid ee aad hadda haysatid aad ku manage gareyn kartid 4 qodob bas 4tan qodob haddii aad say tahay u qaadatid waxaan hubaa oo hubaal ah inaad ku guuleysan doonto hadafka nolosha aad ka leedahay ee ah dhinaca dhaqaalaha haddaba sida kor ku qoran waxay tahay how to manage your money 4 qodob bas waqtigana aanoona kaa cunin adigana ay faa'iido ku noqonayso recognize that you cannot help everybody oo macnaheedu ay tahay ogow inaadan qof walba oo bini'aadan ah oo ku nool magaaladaada aadan caawin karin oo aadan caawin karin waxaan ka wadaa financially ma ku caawin kartid qof walba gacantaada ma gaarto laakiin qof walba waxa gaaro dabeecadaada iyo akhlaaqdaada wanaagsan iyo adiga wanaagaada gaari karo laakiin dhaqaale kuma gaarsiin karaysid marka waxaad ogaataa oo aad acknowledge garaysaa in qof walba aadan lacag ku gaareynin laakiin qalbi wanaagsan aad ku gaaraysid qodobka labaad spend less than you earn mishaarka aad qaadatid lacagta lagu soo diro haddii adiga aad shaqaysid ama haddii income aad leedahay oo ilaahay kugu daraaday ganacsiga aad leedahay lacagta aad qaadatid waxaad isku daydaa expenses-kaada iyo income wax la dhahaa jiro expenses-ka waxay tahay waa wixii aad kharash garan lahayd waxa kamid ah guriga kiridiisa cuntadaada waxa kamid ah ilaahay kugu daraaday biyihii electricity bill-kii waxaasoo dhan dharkii waxaad u baahnayd oo dhan waxaa la dhahaa expenses marka waxaad isku daydaa expenses-kaas in aysan ka badanin income-ka ama mishaarka aad qaadatid waxaa la rabaa expenses-ka ama adiga isticmaalkaada inuu ka yar yahay dhaqaalaha aad qaadanaysid laakiin lama rabo in spending-kaada ama wixii aad maxaa la yidhi kharash garayntaadii ay ka badnaato wixii adiga aad qaadanaysay muhiimaddu waa midaas 3 avoid borrowing waxaad ka dheeraataa inaad wax soo deynsato waxyaabaha ugu weyn dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysto dadka Asiaanka ah iyo Afrikaanka waxa ka mid ah borrowing-ka lacagta faraha badan oo ay borrow gareynayaan waxaad arkaysaa qof baa $200 baa dukaan looga lahaa ama maybe adiga wixii deyntii oo kale tusaalaan yaan u soo qaadanaynaa $200 baa lagu lahaa dukaanka looga lahaa uu geenayaa $200 lacagtii markuu soo qaato wuxuu haddana soo qaadanayaa $400 qarash ku kacayo $200 baan awal lagu lahaa buu geeyay meeshaas waxa kaaga cadaanaysa $200 lagu leeyahay marka halkaas waxay imaanaysaa in already deyn aad gashay deyntaas markaad gashidna bisha dambe markaad qaadatid minus baad ku sii jiraysaa iska daa inaad wax dhigatid iska daa inaad lacagtii aad manage garaysid laakiin waxaad ku sii jiraysaa minus so si aad bahalkaas uga dheeraatid isku day inaad minimize garaysid ama aad yaraysid isticmaalkaada iyo lacagaha aad deynsanaysid qodobka afaraad last but not the least
save 10% of your salary. dadka ugu waaweyn oo qorayaasha waaweyn dadka hantida adduunka ka tabcay ee lacagaha sida loo manage gareeyo aadka ugu takhasusay way khilaafsan yihiin qodobkan waxay ku leeyihiin boqolkiiba 20 save garee bishaarkaada laakiin ninkan wuxuu leeyahay asoo ku base gareynayo Africa iyo Asia iyo waliba dalalka oo qaradaha xogaa yaraa money management-iga ay ku adag tahay kale 10% hadii uu save gareeyo waa nin dadaalay oo wax badan buu ka adkaaday sababtoo taynkii baaba laga leeyahay inay save gareeyaan marka saving kan waxyaabaha uu ka caawinayo waxa kamid ah qof hadii uu ka xanuunsado ama aad xanuunsatid familkaada qoyskaada qof kamid ah hadii ay dhibaato soo gaarto hadii ay dhacdo in safar aadaysid hadii ay dhacdo wax walbo adiga unforeseen events la dhaw waxyaabaha aan la ogeyn aan loo diyaar garoobin iyo kamid tahay waxaan in lagu caawiyo saving marka in lacag save gareysid oo wax ay meel ku yaalaan waxay ka caawinaysaa in wixii markaas soo baxo aan la ogeyn oo kale ay ka jawaabto waxay ka caawinaysaa projectiyo cusub oo markaas soo baxay inaad uga faa'iideysan kartid lacagta aad save gareysay waxay ka caawin karaysaa markaas fursado qaali ah oo markaas laga yaabo raqiis inay yihiin inaad ka faa'iideysan karto waxyaabo fara badan ay lacagta saving ka ah ka caawinaysaa hadii aad save gareysid hadaba aan ku celiyo qodobka recognize you that you can't help everybody ogow inaadan qof walba caawin karin laakiin qalbiga iyo wanaagaad ku caawin kartaa qofka labo isku day isticmaalkaada inuu ka yar yahay lacagta helaysid mishaarkaada saddex isku day inaad ka dheeraatid deymaha faraha badan ee aad deysanaysid afar isku day inaad boqolkiiba 10 ka save gareysid mishaarkaada aad qaadatid intaas ayaan ku soo gabagabeynaya waxaana aad u rajeynayaa in dhalinyarada asxaabta dadka ay daawanayo ay wax badan ka faa'iidi doonaan hadii toolskan hadda aan idin sheegay aad raacdaanna aad wax badan ku guuleysan doontaan waxa xaqiiqo waxa jiro money management tools oo iskuulada laga barto laakiin money borrowing tools anaga dhan waa wada naqaanaa macnaheedu waxay tahay lacag sida loo deensado cidna bartay male qof walba si automatic u bartay laakiin lacag sida loo manage gareeyo waxay u baahan tahay aqoon bay u baahan tahay waxay u baahan tahay course in lagu qaato waxay u baahan tahay si degan waxay u baahan tahay tricks in la ogaado aan laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan idin kala qayb qaato hadba programkii aan u arko markaasi inuu useful ama muhiim u yahay bulshadayda Soomaaliyeed ee aan ka dhashay hadduu ilaahay kala noqdo waan idin wadaagi doonaa adinkan waxaan idinka codsanayaa wixii uu ku horumari karo channelkan inaad igala qayb qaadataan oo ay kamid tahay hadii aad tusaale doonaysid inaad fikirkaada quruxda badan la wadaagtid fadlan comment dheh hadii aad doonaysid in asxaabtaada kale ay ogaadaan oo aygan barnaamijkan ka faa'iidaan fadlan share dheh hadii aad doonaysid mar kale inaad soo laabato oo aad dhageysato barnaamijyada la socoto subscribe dheh hadii aad channelkan ka heshay wax badan ku kordhiyeen likes dheh waxaan idin leeyahay maalinka habeenka xilli walbo idin tahay idin wacnaato waxaan idin rajeynayaa khayr ana dhamaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh